السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت عشر كنفقد وحقوقها لأن هدي الله إنه فائدوين كعنها جيلة فائدوين كعنها جيلة كلية ما أنت كمسوا كوبي كرنا لكن وح أسكت إن هدي الله يود العلم إن وحير كتابنا فائدة عنها جيلة وحكم ذا إن كفائدة بديهن عن يوغ كلا سيدا عنها لقضة يا أرجع سيدا كلا عنها جيلة وحكتره فيتامين بدن sida vitamin B iyo vitamin C sidoo kale caanaha geela waxa laga helaa calcium iyo phosphorus calciumka wuxuu naga caawiyaa adayga lafaha iyo inaysan lafuhu jajabin sidoo kale caanaha geela waxay hodan ku yihiin waxa loo yaqaan birta ama ironka taasoo laga helo 10 jeer ka badan inta laga helo lo'da ayanta laga helo caanaha geela waxay ka badan tahay inta laga helo kuwa lo'da oo waxa badan kuwa geela inta laga helo taasoo macnaheedu yahay in ay u fiican tahay si gaar ahaaneed hooyada uurka leh iyo dadka dhiig la'aanta hayso caanaha geela waxa ku jira maadooyin difaaca jirka kuwaas oo yareeya fursadaha qaar kamid ah cudurrada halista ah sida dhiig karka iyo sokorta heerka dufanta ee ku jirta caanaha geela way ka yar yihiin kuwa ku jira caanayoga kale oo waxa yar caanaha geela dufanta laga helo taasoo naga ilaalisay cayilka iyo sidoo kale cudurrada hoos ku jira oo cudurrada ku hoos jira dufanta sida cholesterolka kale iyo inay naga ilaaliyaan caanaha geela waxay ka hortagaan jeermiska iyo sunta jirka soo weerarta sidoo kale waxay la dagaalamaan bakteeriyada wayna tirtiraan waxay difaacaan cuntada dhibi karta mindhicirada bakteeriyada wayna ka dilaan sababtoo ah waxa jirta hadda in Soomaalida markay ilmuhu yar yihiin 2 sano ilmuhu markuu jiro caanaha in laga joojiyo oo cunada lagu bilaabo oo la dhaho caanaha la joojiyo cunada lagu bilaabo taasoo qofku markuu weynaado Soomaalida gaar ahaan markay weynaadaan ay markastaba ay la qabsaneen caanihii markay cabaan caanaha musqushay aadayaan calooshooda ma aysan baran lamana aysan qabsan marka ilmaha ilaa intuu ka koriyo intuu qofku weynaanayo waa inuu caanaha cabaa hadba caanuhu heli kara waxaan ugu faa'iido badan caanaha geela haddii kale hadhowtu waxay noqonaysaa in markasta calooshii ay si fudud saxaradii kaaga imaato oo aad u dul qaadan weydid sababtoo ama aysan baran laakiin dadka bartay ayagoo yar ilaa ay ka weynaanayaan oo 3 galaas maalintii ka cabba caanaha way ka adkaysi badan yihiin dadkan kale oo markasta calooshooda ma jilcsana ee caadi bay tahay calooshooda sidoo kale caanaha geela waxa laga helaa isku dheelitirnaanta sidoo kale waxa jira cudurro la xiriira caanayoga kale sida caanaha lo'da kale laakiinse in caanaha geela laga ma helo wax cudur ah caanaha geela waa daawo waxayna daawo u yihiin dadkoo dhan caruur iyo ciroolaba rag iyo dumarba khaasatan waxay aad ugu fiican yihiin ilmaha autism-ka qaba ilmaha laclacay waxaas la dhaho caanaha iyo biyaha caanayoga kale lama sii laakiin caanaha geela bay daawo u tahay heerka biyaha ee ku jira caanaha geela way ka badan yihiin kuwa kale caanayoga kale inta ku jirta oo dadka reemiga ah caana geel kaliya bay ku noolaan karaan biyo la'aantood sidoo kale waxa jira dadka reemiga si guud ahaaneed iyo dadka geeleydaba si gaar ahaaneedba way ka caafimaad badan yihiin dadka kale waxaana keenaya waa caanaha geela iyo hilibka geela sidoo kale hadda waxa khubarada cilmiyahanada ay isku taxalluujinayaan inay ka soo sameeyaan caanaha geela saabuuno iyo caano booraha kale ama ay hagaajinayaan ay meel kasta dal iyo dibadba ay geenayaan haddaan Soomaalinahay dalkeena caana geela waa laga helaa geela waa dhaqana waa inaan ka faa'iideysano waa nicmo Ilaahayna siiyay marka waa inaan ka faa'iideysano caanaha geela caruurta inta yaryar yihiin la baro ilaa inta ay ka weynaanayaan dadka qofka awooda maalinta 3 galaas inuu cabo caanaha waxay ka qayb qaataan koritaanka ilmaha markuu yar yahay iyo dadka waaweynba dherarka dadka Ilaahay waa u bixiya laakiin caanaha geela aad bay uga qayb qaataa caanaha dhan khaasatan caanaha geelna way ka sii qayb qaataan dadka caanaha geela lagu koriyay dadka kale way ka dheer yihiin 10 maanta intaas ku saabsan yahay wixii su'aalo waa weydiin kartaan